fitnada internetka waxa kamida dhibaatooyinka ugu dardaran ee ku jiraayay akhlaaqdii wanaagsaneed oo la dilo in la faafiyo iyadoo loo marayo faafinta mawaada ibaaxiga ah akhlaaq xumada dhaqan xumada fawaaxishta iyo zinada muxuu ahaayay fasaad noocu dooni ha noqdo akhlaaqiya beenta tazwiirka iskhayaanida magacyo khaldan in muxuu ahay la isticmaalo in umada akhlaaqda laga dilo cifadii iyo dhowrsoonaantii in la dilo cifadii iyo dhowrsoonaantii in la baabi'iyo xishoodka in la baabi'iyo in meeshaasi laga qaato duruusta ah bini aadamku waa sida xayawaanka waa isku fasaxan yahay raggii oo qaawan dumarkii oo qaawan fawaaxishtii oo la samaynayo qashinkii oo socda ayaa banaanka yaala dhalinyaradeenii iyo carruurteediina waxaasay ku fasaxan yihiin maxaad ka filaysaa marka ilmo waxaa daawanaya oo 10 jir ah oo 8 jir ah oo 7 jir ah oo waxaasi ku barbaarayo daawanaya maskaxdiisa ay galayso markuu weynaado maxaad ka filaysaa waxaad ka fishaay wax weeyaan midda ugu dhow inuu ku bilaabo walaashii inuu ku bilaabo waana dhaqanka dadkani waxaanu ka soo jeedaan dhaqankooda waay maanta waxay ilzaamiyeen oo iskuulada qasab kaga dhigeen carruurta yaryarka ah in iskuulada lagu baro qaabka la isugu tago oo waliba qasab oo sandulla ah oo aan baryo ahayn waxaasaa marka gacanta ku haya sidaas daraaddeed wixii akhlaaq la dhihin jiray iyo dhaqan wanaagsan in la burburiyo laga takhalluso ummadu waa akhlaaq ummaddu hadday akhlaaqdu weydana wax jira ma aha qowmu luut buu ilaahay wuxuu u baabi'iyey oo dhulka ula gooyey oo kor loo inta laga keenay la dabarogay calashaani wax way akhlaaq xumo caalamkuna hadduu sidan ku sii socdo nihaayadiisa iyo dhammaanshihiisu ma foga lianna ummaddu mar hadday akhlaaqda lumiso kownka inay sii joogto ma istaahisho ilaahay sunankiisu sidaa u ah inay sii noolaato ma istaahisho waa halis marka akhlaaqdii burburtay baaba'day gabdhaheennii carruurteennii dhallinyaradeenii aafo weyn